ani wanaagsan halkan waxaan idinku hayaa maanta maadaama ay tahay 26 Juun warbixin daaha ka rogaysa in waqooyiguba xarriyada loo siiyay si ay koonfur ula midoobaan waa maxamed ibraahim cigaal oo afkiisa inooga sheegaya maxamed ibraahim cigaal wuxuu ahaa kooxdii tagtay ingiriiska soo saxeexday xorriyada afku inooga sheegaya koonfur waa la yaqaanay inay kowda luuliyo qaadanayso xorriyada oo 10 sannadood kahor ayay talyaaniga kula sii heshiiyeen in kowda July la siiyo xorriyada kadibna reer waqooyiga oo aanu u tababarnayn dawladnimo ayaa ingiriiska la hoos cararay oo ku yiri waa in cigaal baan idin dhageysiin doona oo afkiisa inooga sheegaya waxa uu u tagay ingiriiska ay tageen markaasay ku yiraahdaan maadaama walaalaha iyo koonfureed hadda waa tabto maxamed ibraahim cigaal hadalka u dhigay dhageysta taariikhdaas maadaama walaalaha iyagii koonfureed kowdii luuliyo la siinayo xorriyadii iyagaanu la midoobaynaa nasiya waayo ingiriisku muu rabin inuu waqooyiga siiyo sababta ugu weynna waxay ahayd muuba aaminsanayn in ay dawlad noqon karayaan tiina runtii bay ahayd way dhacaysay dad markaa hana qaad leh oo dawladnimada garanaya oo u bisil inaan oon garanayninba inay waqooyiga tahay bay ogaayeen uu ogaa ingiriisku kadib wuxuu ku yidhi bal taariikhda ayaga maxamed ibraahim cigaal baan idin dhegeysiin doonaa waanu u tagnay buu yidhi kadib waxaanu ku nidhi walaalaha iyo si aanu ula midowno inaan nasiisaabaan rabnaa sidiiba ingiriisku uu ku siiyey xorriyadii laakiinse bishuruud maxay ahayd in ay koonfur la midoobayaan markaa maxay noqonaysaa kowda luuliyo waa maalinta qaran ee soomaaliya 26 Juun waxaa dhashay kowda luuliyo koonfurta xorriyadda qaadanaysay halkaana waxaa inoogu cad in soomaalida weyni ahayd markii hore iyo dhashay kowda luuliyo koonfurta xorriyadda qaadanaysay halkaana waxaa inoogu cad in soomaalida weyni ahayd markii hore iyo ani wanaagsan halkan waxaan idinku hayaa maanta maadaama ay tahay 26 Juun warbixin daaha ka rogaysa in waqooyiguba xarriyada loo siiyay si ay koonfur ula midoobaan waa maxamed ibraahim cigaal oo afkiisa inooga sheegaya maxamed ibraahim cigaal wuxuu ahaa kooxdii tagtay ingiriiska soo saxeexday xorriyada afku inooga sheegaya koonfur waa la yaqaanay inay kowda luuliyo qaadanayso xorriyada oo 10 sannadood kahor ayay talyaaniga kula sii heshiiyeen in kowda July la siiyo xorriyada kadibna reer waqooyiga oo aanu u tababarnayn dawladnimo ayaa ingiriiska la hoos cararay oo ku yiri waa in cigaal baan idin dhageysiin doona oo afkiisa inooga sheegaya waxa uu u tagay ingiriiska ay tageen markaasay ku yiraahdaan maadaama walaalaha iyo koonfureed hadda waa tabto maxamed ibraahim cigaal hadalka u dhigay dhageysta taariikhdaas maadaama walaalaha iyagii koonfureed kowdii luuliyo la siinayo xorriyadii iyagaanu la midoobaynaa nasiya waayo ingiriisku muu rabin inuu waqooyiga siiyo sababta ugu weynna waxay ahayd muuba aaminsanayn in ay dawlad noqon karayaan tiina runtii bay ahayd way dhacaysay dad markaa hana qaad leh oo dawladnimada garanaya oo u bisil inaan oon garanayninba inay waqooyiga tahay bay ogaayeen uu ogaa ingiriisku kadib wuxuu ku yidhi bal taariikhda ayaga maxamed ibraahim cigaal baan idin dhegeysiin doonaa waanu u tagnay buu yidhi kadib waxaanu ku nidhi walaalaha iyo si aanu ula midowno inaan nasiisaabaan rabnaa sidiiba ingiriisku uu ku siiyey xorriyadii laakiinse bishuruud maxay ahayd in ay koonfur la midoobayaan markaa maxay noqonaysaa kowda luuliyo waa maalinta qaran ee soomaaliya 26 Juun waxaa dhashay kowda luuliyo koonfurta xorriyadda qaadanaysay halkaana waxaa inoogu cad in soomaalida weyni ahayd markii hore iyo ani wanaagsan halkan waxaan idinku hayaa maanta maadaama ay tahay 26 Juun warbixin daaha ka rogaysa in waqooyiguba xarriyada loo siiyay si ay koonfur ula midoobaan waa maxamed ibraahim cigaal oo afkiisa inooga sheegaya maxamed ibraahim cigaal wuxuu ahaa kooxdii tagtay ingiriiska soo saxeexday xorriyada afku inooga sheegaya koonfur waa la yaqaanay inay kowda luuliyo qaadanayso xorriyada oo 10 sannadood kahor ayay talyaaniga kula sii heshiiyeen in kowda July la siiyo xorriyada kadibna reer waqooyiga oo aanu u tababarnayn dawladnimo ayaa ingiriiska la hoos cararay oo ku yiri waa in cigaal baan idin dhageysiin doona oo afkiisa inooga sheegaya waxa uu u tagay ingiriiska ay tageen markaasay ku yiraahdaan maadaama walaalaha iyo koonfureed hadda waa tabto maxamed ibraahim cigaal hadalka u dhigay dhageysta taariikhdaas maadaama walaalaha iyagii koonfureed kowdii luuliyo la siinayo xorriyadii iyagaanu la midoobaynaa nasiya waayo ingiriisku muu rabin inuu waqooyiga siiyo sababta ugu weynna waxay ahayd muuba aaminsanayn in ay dawlad noqon karayaan tiina runtii bay ahayd way dhacaysay dad markaa hana qaad leh oo dawladnimada garanaya oo u bisil inaan oon garanayninba inay waqooyiga tahay bay ogaayeen uu ogaa ingiriisku kadib wuxuu ku yidhi
bal taariikhda ayaga maxamed ilaahna cigaal baan idin dhegeysiin doonaa waanu u tagnay buu yidhi kadib waxaanu ku nidhi walaalaha iyo si aanu ula midowno inaadna siisaa baan rabnaa sidiiba ingiriisku uu ku siiyey xorriyaddii laakiinse bishuruud maxay ahayd in ay koonfur la midoobayaan markaa maxay noqonaysaa 1 luulyo waa maalinta qaran ee Soomaaliya 26 juun waxaa dhashay 1 luulyo koonfurta xorriyadda qaadanaysay halkaana waxaa inoogu cad in Soomaalida weyni ahayd markii hore